kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warkii habeenimo TV-ga NTN. warka habeenimo ee TV-ga NTN idiin haya waxaa ka mid ah sida loo kala siinayo wasaaradaha ugu muhiimsan beelaha, xog ku saabsan dood ka taagan qaabkii loo magacaabayo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir, ra'iisul wasaaraha cusub oo kulan la qaatay gudoonka golaha shacabka, maxkamadda ciidamada oo maanta xukun ku riday lamaane Daacish oo eed loo haysto, howlgalka midowga Yurub oo agab ciidan ku wareejiyay dowladda Soomaaliya. qodobka warka dibaddana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo walaac ka muujisay saameynta dunida uu ku yeeshay dagaalka Ukraine. waa 16 bishii 6 sanadkuna waa 2022. kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan daawadayaal. iyadoo durba ay bilowdeen loolanka ku aadan wasaaradaha ugu muhiimsan xukuumadda iyo sida ay ku doonayaan beelaha inay u kala helaan ayaa hadda heshiis laga gaaray. beesha madaxweyne xasan sheekh ka soo jeedo ayaa lumiyay boosaskii saameynta lahaa ee loo yaqaano ama muhiimadda gaarka ah lahaa sabab la xiriira in abgaal haystaan xilka dalka ugu sareeya. NTN TV ayaa heshay macluumaad sir ah oo ku aadan in wasaaradaha qaar la kala helay iyadoo ay macquul tahay in farmaajo beeshiisa xilal muhiim ah heli karto. xogaha aan ogaanay ayaa ku waramaya in madaxweyne xasan iyo ra'iisul wasaaraha cusub uu magacaabay Xamse Cabdi Barre ay qalinka ku wada duugeen xukuumad kooban oo u badan qorax joog in la soo dhiso laguna yareyn doono qurba joogta ama dadka dibadda jooga ahaa. wasiirka arrimaha dibadda Mareexaan, wasiirka arrimaha gudaha Habargidir, wasiirka maaliyadda Samaroon, wasiirka gaashaandhigga Laysaan, wasiirka qorsheynta Mareexaan, wasiirka caafimaadka Majeerteen, wasiirka howlaha guud iyo guryeynta Dhulbahante, wasiirka dastuurka Leelkase, wasiirka haweenka Warsangeli Daarood. waxaa dhici karta in isbeddel ku yimaado wasaaradahaasi iyo beelaha sida ay u kala helayaan, balse waxaa macquul ah in ay u badan tahay in sidaasi ay wax noqdaan marka aan qiimeyno xogaha hoose aan aragnay. wararka ka imaanaya madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in hadda loo wareegay mashquul ku aadan magacaabidda gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho iyo shaqsiga laga dhigi lahaa. xubnaha xisbiga UPD ayaa sii diyaarsaday 2 nin midkood, balse waxaa socda wada tashadii ugu dambeeyay oo ku aadan in la kala xusho siyaasiyiin badan oo qurbo joog ah, qaarkood xilkaasina soo damaaciyay. dib u soo celinta 2 qof oo hore oo xilkan u soo qabtay iyo 2 kale oo in la tijaabiyo doonaya ayaa ah kuwa lagu hadlahaynta badan yahay in jagadaasi qaban karaan. dooda ugu weyn waxay ka jirtaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud xubno ka tirsan xisbiga UPD ay u soo jeediyeen in la kala reebo 2 jago, qofna loo magacaabo duqa Muqdisho midka kalena laga dhigo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir. sidan oo kale hore ayaa loo sameeyay dowladii madaxweynaha uu ka ahaa Allah u naxariistay Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde. xulashada shaqsiga laga dhigay gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir waxaa go'aankeeda ugu dambeeyay iskale madaxweynaha Jamhuuriyadda Xasan Sheekh, balse xogta ay heshay NTN TV ayaa sheegaya in ay suurtagal tahay in dib loo soo celiyo Jenaraal Xasan Maxamed Xuseen Mugaab oo 2014 ilaa 2015 xilkan soo hayay. ama madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sameyn karaa meel aan laga filayn inuu ka keeni doono shaqsiga uu xilkan u dhiibi doono, ha noqoto qof ka soo jeeda deegaan ahaan Ceelbuur ama Hiiraan iyo deegaanada ku teedsan si saami qaybsiga loo simo. miiska waxaa saaran xilka qaadista Cumar Maxamuud Maxamed Filish oo saaxiib la ahaa maamulkii hore ee madaxweyne Farmaajo ayaa sanado xilkan soo hayay lana tuhunsan yahay in magac iyo maalba uu ka sameeyay. ra'iisul wasaaraha magacaaban mudane Xamse Cabdi Barre ayaa booqasho iyo salaan ugu tagay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo ugu hambaliyay xilka qaran ee loo magacaabay. ra'iisul wasaaraha ayaa gudoonka golaha shacabka ka codsaday inay ku gacan siiyaan sidii uu heli lahaa kalsoonida golaha si uu u soo dhiso xukuumad cusub. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ayaa kulankan qayb ka ahaa. ra'iisul wasaaraha cusub ayaa u muuqda mid shaqadiisa ay hufanaan doonto isla markaana si dhow ula shaqeeya madaxda qaybaheeda kala duwan. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun ku riday nin iyo haweeney lagu eedeeyay dambi ah inay ka tirsan yihiin ururka Daacish, kuwaasi oo 5tii bishii la soo dhaafay ee May lagu xiray xabsiga dhexe.
magacyada ninka iyo haweeneyda la xukumay ayaa lagu sheegay Dayib Macalin Maxamed Xasan iyo Xaliimo Cabdi Mursal Ibraahim oo loo haysto inay ka tirsan yihiin Daacish isla markaana ay isku guursadeen magacyada Mustafa iyo Xaawo. Dayib ayaa ku eedeysan saameynta qaraxyada halka Xaliimo ay ahayd soo dhaweynta xubnaha Daacish iyo keedinta hubka ay dhibta ku geysanayaan, waxaana eedeysanayaashan la xiray bishii Maarso ee sanadkan. garsoorka ayaa ka dalbaday xeer ilaalinta inay la yimaadaan cadeymo dhammaystiran oo lagu maxkamadeyn karo Dayib iyo Xaliimo. wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo taliska ciidanka xoogga ayaa agab ciidan oo casri ah kala wareegay howlgalka midowga Yurub oo taageero siiyo dowladda federaalka Soomaaliya. taliyaha ciidanka lugta ee Soomaaliya Jenaraal Maxamed Tahliil Biixi ayaa sheegay in qalabkani uu muhiimad gaar ah u leeyahay howlgalka ciidanka xoogga, wuxuuna xusay in guulaha ciidanka ay qayb ka tahay adeegsiga qalabka. qaramada midoobay ayaa walaac xooggan ka muujisay saameynta ka dhalatay colaadaha ka socda dalalka caalamka, si gaar ah dagaalka Ukraine iyo Ruushka kaasi oo sababay barakac malaayiin qofood oo ku nool daafaha dunida, waxaana qaramada midoobay ay ka digtay in dadkani barakacay ay saameyn karto cunto la'aan baahsan oo soo food saari karta dadka ka barakacay colaadaha ka jira dunida. warbixin sanadle ah oo ay soo saartay hay'adda qaxootiga adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo UNHCR ayaa muujinaysa in 89.3 milyan boqolkiiba iyaga oo aan raali ka ahayn ay isaga soo barakaceen guryahooda guud ahaan dunida. sanadkii 2021 waxaana barakaca sababay dagaalada iyo khilaafaadka ka taagan badi wadamada caalamka. 14 milyan oo ruux ayaa ka barakacay dagaalada ka socda Ukraine tan iyo markii 24 bishii Febraayo ee sanadkan Ruushku bilaabay gulufka militari oo ka dhan ah Ukraine, waxaana weli socda dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine. daawadayaal waxaa halkaasi noogu eeg warka habeenimo. warka xiga intaan ku kulmayno waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. MTN TV.